ninkii wuxuu soo qaaday dhammaan lacagtiisii kaydsan wuxuuna ku bixiyey suuqa saamiyada isagoo lacagta oo dhan geliyey saamiyad hoos u dhacday si daran. ficilkaas ayaa markiiba soo jiitay indhaha dadkii halkaas joogay. dhammaan waxay isku dayeen inay ku yidhaahaan ha samayn, balse ninkii wuu ku adkaystay fikradiisa isagoo iska dhega tiray hadalladii shaqaalaha ee ka digayay. wuxuu lacagtiisii oo dhan si toos ah ugu iibsaday saamiyadaas. dadkaas oo dhan waxay ku qosleen iyagoo leh waa nacas, laakiin ilbiriqsiyo kadib saamiyadii uu iibiyey ayaa si lama filaan ah cirka u gashay daqiiqada gudahood. wuxuu horay u helay $20 milyan, waana sababta loogu yaabay ninkaas maxaa yeelay wuxuu lahaa awoodo gaar ah oo uu mustaqbalka ku sii arki karo. daqiiqada ka hor saaxiibtiis ayaa timid si ay lacag uga amaahato, laakiin ninkii wuxuu si lama filaan ah u arkay mustaqbalkiisa. mustaqbalkaas wuxuu dayn sare oo ribo badan ah ku amaahday $1 milyan si uu u daaweeyo hooyada saaxiibtiis. laakiin markii uu lacagtii u wareejiyey wuxuu ogaaday in hooyadeed aysan xanuunsanayn, waxayna diideen inay lacagta soo celiyaan. ninkii si daran ayuu u baryay saaxiibtiis, laakiin iyadu xitaa ma dareemin wax dembiga ah. waxay si kibir leh u tiri lacagtaas waan isticmaashay. dabadeed way iska tagtay. maadaama uusan haysan wax lacag ah oo uu ribadii sare ku bixiyo, ninkii waxaa khasbay dadkii daynta lahaa, ugu dambayna wuxuu isku tuuray isagoo isdilay. markaas ayuu miyirkiisu si lama filaan ah ugu soo noqday dhabta, isagoo si weyn u cabsi qabay kana baqaya in saaxiibtiis ay mustaqbalkaas mar kale samayso. markay mar kale timid si ay lacag u amaahato, ninkii si uu uga hortago musiibada xitaa sugin inay hadalka dhammayso. wuxuu isla markiiba oggolaaday inuu siiyo $1 milyan si ay ugu daaweyso hooyadeed. saaxiibtiis aad bay u faraxday markay maqashay, iyadoo aan garanayn inuu qorshe kale wato. markii ugu dambaysay ninkii wuxuu isticmaalay telefoonkeedii si uu ugu amaahdo $1 milyan oo ribo badan leh, lacagtaasna si toos ah ugu baxday magaca gabadha. kadib markii lacagtii timaaday, gabadhii si kalgacal leh ayay uga mahad celisay, waxayna tagtay. markay baxday, ninkii wuxuu bilaabay inuu raadiyo dariiq degdeg ah oo uu noloshiisa ku badbaadiyo. wuxuu tegay albaabka bangiga si uu u sugo madaxweynaha bangiga. sida uu hore u arkay, markiiba burcad ayaa soo baxday oo doonayay inay toogtaan madaxweynaha. ninkii si geesinimo leh ayuu u galay, wuxuuna badbaadiyey madaxweynihii, balse isagii dhaawac fudud ayuu ka qaaday oo miyir beelay. markii uu soo toosay, wuxuu isku arkay isbitaal isagoo nabad qaba. madaxweynihii isagoo mahad celinaya wuxuu siiyey $2 milyan. ninkii lacagtaas ayuu ku bixiyey saamiyo, waxaana kor u kacay qiimihii saamiyada si lama filaan ah, wuxuuna bilaabay inuu noqdo nin maalqabeen ah. markuu farxad la buursanaa, saaxiibtiis ayaa fariin u soo dirtay iyadoo tidhi waxaan cunno la joogaa asxaabtayda, imaada oo bixiya biilka. ninkii ma rabin inuu tago, balse si uu ciqaab ugu dhigo wuu aaday. markuu tegey, saaxiibtiis oo aan waxba ogayn ayaa ku faantay hortooda iyadoo leh ninkaygu wuxuu i siiyey $1 milyan lacag jeeb ah. asxaabteed way ka masayreen markay maqleen. laakiin daqiiqada kadib ninkii ayaa yimid. isla markiiba wuxuu ku canaantay isagoo leh hooyaday isbitaal ayay taalaa oo dhimasho u dhow, adiguna halkan cuntada waad iska cunaysaa. maad xishootid? asxaabteed ayaa yaabay. si aysan wejigeeda u lumin waxay tidhi hooyaday ma xanuunsanayso, been ha sheegin, haddii kale waan kaa tegayaa. markaas ninkii wuxuu yidhi haddii aysan xanuunsanayn, lacagtii $1 milyan ee aan ku amaahiyey ii soo celi. gabadhii way xanaaqday, waxayna tidhi lacagtaas adigaa i siiyey, maxaan kuu soo celinayaa? markaas ayuu ninkii si cad u arkay dabeecaddeeda dhabta ah. wuxuu ku yidhi lacagtaas waa dayn ribo badan leh. haddii aadan celin ha isoo raadin marka musiibo ku timaado. kadibna wuu baxay. gabadhii iyadoo aan garanayn runta way iska indha tirtay hadalkiisa. dhanka kale, madaxweynihii bangiga ayaa maqlay wararka suuqa saamiyada, wuxuuna doonayay inuu la kulmo ninkan khabiirka maaliyadeed. markii xogtiisa la helay, madaxweynihii si shakhsi ah ayuu u wacay, wuxuuna ku casuumay inuu ku kulmo goobta golfka. ninkii wuxuu doonayay inuu lacagtii $2 milyan ee la siiyey ku celiyo, sidaas darteed wuu aqbalay casuumaadda. markuu halkaas yimid, wuxuu si lama filaan ah ula kulmay saaxiibtiis iyo ninkeeda cusub ee taajirka ah. gabadhii waxay moodaysay inuu yimid si uu uga raali geliyo, laakiin ninkii wuxuu yidhi anigu ma aqaan gabadhan. iyadoo la yaaban, waxay isku dayday inay gacanta qabato, iyadoo leh beri lacagta waan ku siinayaa ee i raali geli hortiisa. laakiin ninkii wuu iska riixay, wuxuuna ka dhaqaaqay. arrintaas ayaa ninkii taajirka ahaa ka caraysiisay, wuxuuna mooday in ninku dumaray dhibayo. markaas ayuu yidhi anigaa lacagta kuu bixinaya. laakiin markuu ogaaday in dayntu tahay $1 milyan, wuu aamusay. ninkii wuxuu kaftan ku yidhi nin taajir ah adigoo ah $1 milyan miyaad ka xishoonaysaa? taajirkii wuxuu ku marmarsiyooday inuusan haysan lacag ku filan, wuxuuna diiday inuu bixiyo. gabadhii oo caraysan ayaa tidhi waa nin aan xishoon iga daba socday si aan lacagta ugu celiyo. ninkii taajirka ahaa markuu ogaaday in ninkaas uu halkaa ku sugnaa si uu ula kulmo madax sare, ayuu ku qoslay isagoo leh adiga oo heerkaas ah ma waxaad halkan u timid si qarsoodi ah? wuxuu u yeeray waardiyaasha si ay u saaraan, laakiin xilligaas ayaa lenderskii ribada yimid. markay runta maqleen, waxay muujiyeen warqaddii daynta lagu qaaday. markaas gabadhii ayaa garatay in dayntii dhab ahaantii lagu qaaday magaceeda. markay akhriday i owayo gii wejigeedii midabkiisii waa iska beddelay.